madaxda Puntland iyo Jubaland waxa ay la kulmayaan cadaadis xoog looga imaanayo wakiilada caalamiga ah si ay qayb uga noqdaan kulamada siyaasadeed ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka gaar ahaan kulanka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada laguna saxiixo is-afgaradkii Baydhabo lagu soo gaaray kaasoo dhabaha u xaaraya fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii hore kaasoo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay meel mariyeen qeexayna tubta doorashooyinka labada diblomaasi u dhashay Mareykanka kala matalayana qaramada midoobay James Wan iyo Mareykanka Donald Yamamoto ayaa bixinaya dadaalka ugu xooga badan waxaana soo raaca wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya waxa ay lahaayeen sababta labada maamul ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho kagana dhaadhiciyeen ka qaybgalka kulan loo dhan yahay oo looga hadlayo arrinta doorashooyinka waraadyo ka tirsan labada maamul ee Puntland iyo Jubaland waxa ay noo xaqiijiyeen in madaxdoodu doonayaan in ka hor wada hadalka ku salaysan tubta doorashooyinka ay tahay in dhinacyadu ay yeeshaan kulamo gooni ah si looga wada hadlo qodobada u baahan wali in dood la geliyo ama la iscalool xaaro madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo tan iyo halajeedintiisii Garowe aysan isku wanaagsaneen madaxda dawlad goboleedyada kale una arkaya inay ku tahay caqabad siyaasadeed ayaa dhawaan dalbaday kulanka dhigiisa Galmudug Axmed Cabdi Kaariye laakiin qoorqoor oo xilligaasi ka soo laabtay Turkiga waa uu iska diiday dalabka Dani mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka oo badan xubnaha mucaaradka ayaa maalmihii u dambeeyay ka shaqeynaya sida labada madaxweyne ee Dani iyo qoorqoor u kulmi lahaayeen maadaama uu Siciid Dani ku adkaystay in ka hor kulanka is-afgarad ay gaaraan kulanka waxa la dhacay loogana hadlay arrimaha kala duwan ee labada dhinac xogaha laga helayo waxay daha ka rogayaan in madaxweynaha Puntland Siciid Dani uu raaligelin ka bixiyay arrinta ku saabsan hadal jeedintiisii Garowe qaybta ku aadanayd madaxweynaha Galmudug isla markaana uu sheegay inay ahayd arrin dhacday Dani waxa uu doonayaa inuu helo gaashaanbuurti siyaasadeed oo la galbiyo qorshihiisa ku wajahan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan in warqadda caddaynta muddaxileedka farmaajo uu dhamaaday la qoro sidaas oo kale qoorqoor uu dhexdhexaadiye ka noqdo arrimaha siyaasadda ee hadda ay isku hayaan Puntland Jubaland iyo dawladda federaalka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye waxa uu sheegay sida ay warinayaan goobjoogayaal dhigiisa Puntland inuu ka shaqeynayo hirgelinta arrimaha tubta doorashooyinka ee hore loogu heshiiyay is-afgaradkii Baydhabo uu yahay dhabaha ugu dhow ee lagu gaari karo doorashooyinka dalka qoorqoor waxa uu tilmaamay inuu horeyba uga shaqeynayo tubta doorashooyinka iyo sidii dhammaan dhinacyadu ay isfaham buuxa u gaari lahaayeen isagoo tusaaleeyay Siciid Dani hanaankii loo maray heshiiskii 17 Sebtembar saxayaasha cidda ahayd iyo taabagelinta qorshihiisa afgaradka Baydhabo oo dhammaan dhinacyadu isku raacsanaayeen ayna tahay hadda in la saxiixo maadaama aysan jirin qodobo dhinacyadu ay isku diidan yihiin oo ku saabsan arrinta doorashada la kulanka Dani ee qoorqoor dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay ku sifeeyeen Siciid Dani uu doonayo inuu ka gabado cadaadiska caalamiga ah una muujiyo inuu ka shaqeynayo sidii dhinacyada kala aragti duwan loo wadaagi lahaa qorshahooda beesha caalamku waxa ay xoogga saaraysaa in dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida oo bisleeyo doodaha siyaasiga ah ay isugu yimaadaan madasha ugu dambaysa ee saxiixa ayna taasi noqoto dhabaha rasmiga ee lagu gaari karo hanaan ay dhinacyadu isku raacsan yihiin ku adkaysiga labada maamul ee ah inaysan qayb ka noqonayn kulanka hadda ka socda Afisyooni waxay wakiilada caalamigu u arkaan inay tahay tallaabo halis badan dhinaca kalena wali waxa ay bixinayaan dadaal dheeraad oo ku wajahan sidii maalmar looga dhigi lahaa kuudan wada jir ah oo ay isugu imaanayaan dhinacyada siyaasadda ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu saddexda maalmood ee nagu soo wajahan waxa ay xoguhu cadeynayaan in dhammaan darafyada la isku keeno kulan wada jir ah oo looga hadlayo arrinta doorashooyinka kaas oo ay qayb ka wada noqon doonaan dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka waana dadaalka ay bixinayso beesha lixaad oo isugu geynaysa in dhammaan dhinacyada oo heshiisa ay ka tagaan Muqdisho laakiin aysan aqbali doonin dib u dhac doorasho garab socod ah iyo wada hadal guul daraysatoona